madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaaniyo oo tan iyo maalintii shalay ahayd ku sugnaa magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa waxa uu maanta salaadii Jimce masjidka Khalid bin Waliid kula tukaday qaybo kamid ah shacbi weynaha ku dhaqan magaalada Berbera iyadoo qaybo kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Berbera iyo waftiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay si wada jir ah ugu tukadeen salaadii Jimce masjidka Khalid bin Waliid ee magaalada Berbera dhinaca kalena qaar kamid ah bulshada ku dhaqan magaalada Berbera oo TV-ga bulshada la dhex qaaday mikrofoonka ayaa waxay bulshadani madaxweynaha Soomaaliland ku amaaneen isla markaana ay ku bagaadiyeen socdaalkani taariikhiga ah ee uu madaxweynaha Soomaaliland ku marayay deegaanada kala duwan ee dalka sidoo kale bulshadani waxay madaxweynaha gaar ugu hambalyeeyeen socdaalka uu madaxweynuhu ku tagay deegaanada ku teedsan xuduudaha dalka gaar ahaan jiida hore ee bariga Soomaaliland runtii wuxuu soo maray socdaal dheer oo ka soo bilaabay maxay ahayd Gabiile ama si Arabsiyo oo ku soo maray xuduudda Soomaaliland runtii oo ku soo maray ilaa inta oo ku soo maray bari imikana ku soo runtii uu marayo Berbera waxa weeye socdaal sharaf badan waa socdaal dadkiisa ku indheyndeynayay waa socdaal dadkiisa ku kuurgelayay waa socdaal waxa weeye aad u qurux badan waa socdaal loo baahnaa runtii waxaan ku hambalyeeynaa talaabada uu qaaday socdaal ku marayo dadkiisa ku indheyndeeyo waxaan leeyahay si kordhi wax garadka culimaadudiinka dhamaantay waxaan hambalyeeynaa socodka madaxweynaha alxamdulillah ee uu ku soo maray waa madaxweyne qaran waa madaxweyne dalkiisa soo maray waa madaxweyne dadkiisa soo booqday waa madaxweyne u heelan inuu ogaado baahiyaha asaasiga ee ka jira wadankiisa isagoo oo ku soo dhabagalay baahiyaha halka ka jira sidoo kale waxa mahad leh madaxweynaha qaranka oo soo maray safar dheer oo bari iyo galbeedba leh kuna tukaday masaajidka gobolka mar labaad waxaan u mahad celinayaa ilaaha waaxidka ee madaxweynaha caafimaad qaba halkaas salaada lagu tukaday Khalid Xasan Kharash telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Berbera.